السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وادي السلام صاحب يا الملك استوجبت وسعيد حقاي صاحبكي أحمد سفيان. ما أنت واحد وضع واحد عصب أيام وضع هرينا وما نصوب بندقي يا ومركي يقول ريسي وانصوب بندقي مركو حربا حلو ضد قار كومنتي كدودي دونا وان أوجح أنا جن مرونك ما برجع لي بإلهي يا مركي واحد سما يسا حتى بوك يقلن أما كالكوليتر كاغا أما وحاجة كل سوق هذا كسوق يعني بابا سوق أحمد وهي سوق هذا مرك في أما فيديو جبوس ده وحاجة سوق هذا مرك كتب شقدان بالله بدونا شقده محيته هذا بس شقده محيته هاي وحن ما أنتو كبرة يا سيدي لو صاري كرا يعني قف كله بشا ولا شيء جانوري فبراير مارس ابريل ماي جون جولاي اغسطس سبتمبر اكتوبر نوفمبر ديسمبر 12 bilood bishee ka dhashay bishu maxay ahayd markaa yani waxaan ku hayaa tusaale ay halkan ku siin doonaa tusaale ahaan aniga waxaan dhashay 10 iyada oo joogta bisha October soo 10 ma 20keedii yani 20keedii 20 iyada oo joogta 20kii October aan dhashay sanad ma haya waa bishi iyo maalintii inta ay joogtay bishi marka waxaad soo saari kartaa qof kale adiga oo qaacidadan aan ku siinay raacaya ayaad soo saari kartaa marka waxaad leedahay qofku waxaan soo saarayaa maalinta aad dhalatay taariikhda inta ay ahayd iyo bishi aad dhalatay diyaar ma nahay okay tusaalan marka meeshan ku qoray tusaalahaas aan rabo marka inaan kuu sharxo haddii ilaahay idmo أحمد سيف عمل الله أركيا صاني حاجة سايستاجوا عادي سيف عمل الله أركيا واي halkan waxaan ku qoray tusaale marka uu ku leeyahay aniga iska soo qaaday markaan iska soo qaadayo qofkaad waxa ku leedahay yani talaabooyinka uu qaadi doono marka saad u fahamto fiiri anigu waxaan dhashay 20kii October 20 ay joogtay maalintaas October marka waxa leega doonayaa yani leega rabaa inaan soo saaro tobankii oo ah tobanaad 20kii yani bisha tobanaad 20kii tobanaad waa October sama October waa bisha tobanaad January February March April May June July August September October sama October marka 10 weeyaan bisha tobanaad marka waxa laga rabaa bisha tobanaad 20kii oo ah maalinta aan dhashay marka tilmaamahan la raacaya marka tilmaamahan ayaa la raacaya okay maxaad ku bilaabaysaa marka waxaad ku bilaabaysaa okay tobankii maxay tahay وبشي طبنات سما بشي ودشي قفك lagu dhuftay 5 bisha aad yani qofkaas oo dhashay waxa leedahay bisha aad dhalatay adiga ha ii sheegin aniga ha ii sheegin bisha aad dhalatay 5 ku dhufo tira ku soo baxay soma equal waxa ku dartaa 6 ku dar qofku 6 buu ku daray aniga hadda tusaale ahaan hadda ku fiirsato waxaan dhashay 10kii oo bisha 10aad October ah shanaan ku dhuftay konton ay noqotay 6 baan ku daray soo ma 6 baan ku daray 6 baan ku daray marka konton iyo 6 marka qofku waxa leedahay bisha aad dhalatay 5 ku dhuf halkaan ku qorantaa bisha aad dhalatay 5 ku dhuf 6 ku dar 4 yani ku dhufo tirada soo baxday 9 ku dar marka inta joogto waxa lagu darayaa bishi marka bisha lagu darayaa bishi ku daraysa tiradana ku soo baxday hadda marka meesha waxa ka maqan sirta wax lagu soo saari lahaa ku sheegi doona ha iga degdegin laakiin marka hore qaacidadan faham qofku waxa ku leedahay calculator kaaga qabso bisha aad dhalatay haday January ahayd ama January February May bish kasta adoon ii sheegin number kati bisha qor hadda January oo kale waa 1 February waa 2 March waa 3 taas u kala faham tirada qofka tiru qaadanaya waxa leedahay bisha aad dhalatay numberkeeda 5 ku dhufo equal be okay equal le tira ma ku soo baxday 6 ku dar tirada ku soo baxday 6 ku dar okay qofku uu ku daray okay haye 4 ku dhufo hadana 4 ku dhufanaya tira ma ku soo baxday 9 ku dar 9 ku markaasi hadana ku daraya tira ma ku soo baxday 5 ku dhufo 5 ku dhufto okay tira ma ku soo baxday taariikhda aad dhalatay marka meeqay joogtay taariikhda aad dhalatay inta ay joogtay ku dar
taariikhda aad dhalatay inta ay joogtay ku dar ma waxaad dhalatay kow may ahayd laba may ahayd saddex may afar macnaha ilaa bishaas kow iyo soddon bay ku dhamaataa soo ma inta ay ka joogtay ku dar tirada soo baxda marka tira u soo bixi doonta sidan oo kale aniga hadda qaacidadeedu waa taa bisha aan dhashay 5 aan ku dhuftay 6 aan ku daray 4 aan ku dhuftay 9 aan ku daray bisha aan dhashay inta ay joogto maalintii ayaan ku daray marka waxa ii soo baxday 1185 haddaba sirta axmedo hadda ma sheega mase video dabban ka dhiga sidii noo dhibiyar daawadayaashana hadda in loo sheega fiican waay okay haddaba sirta aad wax ku soo saaraysid waxay tahay oo aad maskaxda ku haynaysid qofku waxa leedahay markuu intan dhan soo maro tirada ku soo baxday ii sheeg tirada ku soo baxday ii sheeg tiradu ku sheegaya markuu ku sheego ayaad waxaad ka jaraysaa 165 tira kasta oo ku soo baxda waxaad ka jaraysaa 165 okay hadda ani 165 waxaana leeyahay doonaya soo ma 5 ka jar eber 8 6 ka jar 2 11 hal ka jar hadaan rabto hal ka jar dheh eber halkana soo deji dhaxda saa u kala maray marka waxaan dhashay 20kii bishii 10aad ayaan dhashay aniga sidaas ayay sax ku tahay waana 20kii bishii 10aad ma la fahmay hadda si fiican filaya sirta marka waxay tahay 165 ha iska sheegin qofka ha u sheegin hayso qaacidadan soo weydii bisha aad dhalatay inta ay joogtay 5 ku dhufo 6 ku dar 4 ku dhufo 9 ku dar 5 ku dar taariikhda maalinta inta ay joogtay ku dar tirama ku soo baxday ha ii sheeg anaa ka soo dhex saaranaya marka ku sheego 165 ka jar tirada hore waa bishi weeyaan intana waa maalinta taariikhda inta ay joogtay aniga hadda si aan kan waa tusaale si aad u fahamto aan ugu tala garan u soo qaatay taariikhda aan anigu dhashay okay sorry halkan dabaysha ku badan axmed waa filay inaad haysid iyadoo habeesho soo ma si fiican baan hayaa okay iyadoo dhan haddaan doono saasaan ka dhigi karaa aniga haddaan ka dhigi karaa soo ma si fiican wata aada uma santii saxab waan filaya in la fahmay qaacidadan meel ku qorta hani iloobina insha Allah waad mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullah